aabba u dardaar wariyay wiilashiisa fadlan subscribe saar kanaalkan lana soco muuqaalada cusub. Aabba waa arag ah 4 wiil oo uu dhalay doonayay in uu baro in aanay wax xukumin ama isku dhiibin si degdeg ah, waxaana uu u diray geed ku yaal goob masaafo u jirta in ay soo eegaan xaalkiisa xilliyo kala duwan. kii koowaad waxa uu tagay jiilaalkii, kii labaadna waxa uu tagay gugii, kii saddexaadna waxa uu tagay xagaagii, kii afaraadna waxa uu tagay dayrtii. maalin dambe ayuu isugu yeedhay, waxa uuna weydiiyey xaalka ay ku soo arkeen geedkii, waxayna ku jawaabeen sida tan. kan koowaad waxa uu yiri waxa uu ahaa geed fool xun oo qalqaloocan oo qallalan. kii labaadna kuma raacin ee waxa uu yiri waxa uu ahaa geed caleemo cagaaran leh oo rajo badan ka muuqata. kii saddexaadna labadoodaba uu ku khilaafay, waxa uuna yiri waxa uu ahaa geed leh ubax udgoon badan, indhahana aad u soo jiidanaya. kii ugu yaraa dhammaantoodba waa uu beeniyey, waxa uuna yiri waxa uu ahaa geed bislaaday oo diyaar u ah midhihiisa la goosto. aabbahood waxa uu dhammaantood u sheegay in ay saxan yihiin, laakiin uu mid kasta arkay xilliyo kala duwan. lagumana xukumi karo nolosha geedka iyo nolosha qofeedba, waa in la sugaa 4 xilliba ka dhammaanayaan. wiilashiisiina waxa uu ku yiri haddaad isdhiibto jiilaalka waxaad waayaysaa rajada guga, quruxda xagaaga iyo dhammaystirnaanta ama bisaylka dayrta. ha u ogolaanin xanuunka hal waqti in uu baabi'iyo quruxda iyo rajada noloshaada dambe ee dhan. xaaladuhu way isbedelayaan mar kasta. maalmaha wacan ee dambe waa in aanad ku burburin dhowr maalmood oo qaraar. wax walba way hagaagayaan insha Allah. waad ku mahadsantahay daawashadaada. haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalsan, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.